macallin Erik ten Hag ayaa sanadkiisii ugu horreeyay ee waayihiisa Manchester United ku guuleystay inuu kooxda kusoo celiyo garoomada Champions League isagoo sidaas lamid ah kula guuleystay koobka EFL Cup-ka isla markaasna geeyay finalka koobka FA Cup-ka oo maalinta Axadda isbuuca soo socda ay la dheeli doonaan kooxda Manchester City. Haddaba maxaa lagu qiimeyn karaa waxqabadka Erik ten Hag sanadkiisii ugu horreeyay ee waayihiisa Manchester United muxuu soo kordhiyey maxaase laga filan karaa sanadka ama xilli ciyaareedka soo socda. soo dhawaada saaxiibayaal kusoo dhawaada pagekan hoyga United fans oo ah channel ama page aan soo gelino wararka falanqeymaha iyo sheekooyinka la xiriira kooxda Manchester United una gaara taageerayaasha Manchester United. haddii uu muuqaalkan kusoo gaaro tahayna taageero Manchester United ah fadlan like saar pageka follow dheh muuqaalkana share garee mahadsanid. muuqaalkan waxaan ku falanqeyn doonaa waxqabadkii macallin Erik ten Hag ee seasonkii dhamaaday waxa uu soo kordhiyey iyo waxyaalaha laga filan karo sanadka soo socda iyo guud ahaan sida uu ahay seasonka hore kooxda Manchester United. si aan u qiimeyno waxqabadka macallin Erik ten Hag marka hore waxaan u baahanaa inaan dib ugu laabano seasonkii asagoo ka horreeyay iyo sida uu xaalku ahaa. ten Hag ayaa kooxda yimid iyadoo United ay qaadatay season ka mid ah seasonadii ugu xumaa ee soo mara taariikhda kooxda iyadoo kooxda ay ku dhamaystay kaalinta toddobaad ee kala sarreynta horyaalka Premier League isla markaasna ay aad u liidatay rajada taageerayaasha iyo guud ahaan Manchester United iyo waxa sanadkan ay filayeen. ten Hag markuu koox yimid kooxda waxaa laga filayay in sanadkan uu dib u soo celiyo isla markaasna uu dib u dhis ku sameeyo laakiin marnaba rajadu inta ugu badan taageerayaasha Manchester United ku jirta ma ahayn inay top 4 ay si fudud kusoo geli doonaan isla markaasna ay ku guuleysan doonaan koobab ama ay final tegi doonaan. haddaba macallin Erik ten Hag muxuu bedelay maxaas u qabsoomay tan iyo markii uu yimid. waxa ugu horreeya ee macallin Erik ten Hag uu qabtay ama u hagaagay waxaa dhihi karaa waxay ahaayeen saxiixyadii uu sameeyey. ten Hag wuxuu la soo saxiixday ciyaaro ay ka mid yihiin Casemiro, Lisandro Martinez, Anthony iyo Eriksen iyo ciyaarna kale kuwaasoo noqday ciyaarada ugu saameynta badnaa ee kooxdu lafdhabarka u ahaa seasonkii lasoo dhaafay isla markaasna ay kooxdu ku duuleysay. haddaan mid u fiirino Eriksen oo kale wuxuu ahaay ciyaaryahan lafdhabar u ah kooxda qabadkeeda gaar ahaan qaybtii hore ee seasonka waxaad mooday in sidii uu dhaawac u aaday kabacdi oo xoogaa shaqadiisu ay hoos u dhacday balse haafkii hore ee seasonka kahor wixii World Cup ka horreeyay shaqadiisu inaa caadi maahayn. Eriksen ma ahan ciyaaryahan leh lugo ama awood ama maaragtay physical oo kooxda uu ku caawiyo markii ay kubadda haysan laakiin markii kooxda ay kubadda haysato waxaa dhihi karaa waa mid ka mid ah ciyaarnada ugu fiican qaaradda Yurub iyo guud ahaan kubadda cagta adduunka marka laga hadlayo caqligiisa kubadda cagta aragtidiisa iyo weliba khibradiisa. sidaas la mid ah Casemiro wuxuu ahaa mid ka mid ah dhabarka kooxda ee sanadka ku duuleysay wuxuu kooxda u dheelayay qadka dhexe isagoo maaragtay u noqday gaashaan difaacida Manchester United isla markaasna kooxda ka dhigay mid difaaceedu aad u fiican yahay. sidaas la mid ah Casemiro wuxuu ku lug yeeshay gool fara badan isagoo 4 gool isagoo 7 gool dhaliyay 7 gool caawiyay sidaasna ku lug yeeshay 14 gool taasoo ah runtii wax aan looga baran Casemiro. Casemiro wuxuu dhaliyay goolal muhiim ah oo ka mid yahay goolkii finalka ee kulankii ay kooxdu la dheeshay Newcastle ee koobka EFL Cup-ka iyo goolal kale oo muhiim ah oo ka mid yahay labadii gool oo labadii lugood ee Premier League uu ka dhigay kooxda Chelsea. sidaas la mid ah waxaa xusid mudan Lisandro Martinez saameyntiisa iyo sida uu kooxda difaaceeda uga dhigay mid adag iyadoo sidaas la mid ah Anthony oo isaguna maaragtay aan qaadan season maaragtay la dhihi karo wuxuu ahaa mid aad u fiican balse muujiyay saameyn iyo ififaalo oo ku muujinayo inuu noqon karo ciyaaryahan wanaagsan. saxiixda marka laga soo tago waxyaalaha kale ee macallin ten Hag uu soo kordhiyay waxaa ka mid ah inuu kooxda anshaxeeda iyo kala dambeydkooda wuxuu ka bedelay iyadoo ognahay qaabka ula macaamilay sheekadii Cristiano Ronaldo oo ah nin aan dhihi karno waa mid ka mid ah ciyaarada ama waa midka ugu badan ama ciyaaryahanka inta ugu badan laga hadlo maaragtay ee kubadda cagta caalamka iyo sida uu ula dhilgalay xaaladiisa. waxaan sidoo kale ognahay sida uu la dhaqmay Marcus Rashford kulankii uu benchiga geliyay ee kooxda Wolves iyo sidii Garnacho ula dhaqmay isagoo sidaas si lamid ah soo kordhiyay shuruuc aan cidna looga eexanin cidna aan looga xishoonayn taasoo kooxda kala dambeynteeda iyo dressing room-ka systemkiisa maaragtay waxaa dhihi karaa wax weyn kusoo kordhisay. sidaas la mid ah waxyaalaha kale ee Erik ten Hag oo sanadkan United kusoo kordhiyay waxaa ka mid ah inuu Old Trafford ka dhigay goob laga cabsado. sidaan ognahay United waayaheeda ee United ka ahayd Old Trafford waxay ahayd meel laga cabsado oo koox walba aysan si fudud ku badin. sanadkan United waxay ahayd kooxda ama kooxaha mid ka mid ah kooxaha ugu home record ka fiican haddii aysan ahayn kooxda ugu fiican
kaliya hal kulan ayaa looga badiyay horyaalka kaas oo ah kulankii ugu horreeyay ee la dheeray kooxda Brentford. Erik ten Hag wuxuu soo celiyay cabsidii ay kooxaha Premier League iyo kooxaha waaweyn ay ka qabeen Old Trafford iyadoo kooxda ay ku guuleysatay inay ku garaacdo dhammaan kooxaha top 6-ka iyo weliba kooxo kale oo Yurub ka dheera sida kooxda Barcelona oo kale iyadoo Old Trafford kooxdu sidaas la mid ah ay barbareysay rikoorkooda ugu fiican ee horyaal ama season ay kulamadoo dhan ay ku badisay 8 iyo 20 kulan gurigeeda. si lamid ah wuxuu horumar ku sameeyey ciyaaryahanadii kooxda joogay. Marcus Rashford ayaa ka mid ah ciyaaryahanka ka faa'iiday imaanshaha Erik ten Hag isagoo Rashford oo dhaliyay 30 gool horyaaladoo dhan isagoo sidaas ku qaatay seasonkii ugu fiicnaa ee waayihiisa ciyaarista kubadda cagta. Waxaan ognahay in ciyaarno badan ay horumar fiican sameeyeen sida Luke Shaw sidaas la mid ah Victor Lindelof oo horumar fiican sameeyey halka ciyaarno kooxda dhibaato ku hayay oo sida Harry Maguire uu ka mid yahay iyo bijiga la geliyay sidaas la mid ah Aaron Wan-Bissaka aan ognahay isagana horumarka uu sameeyey. Dalot inkastoo sidii half-time-kii dambe ee horyaalka uusan si fiican u dheelayn. Ten Hag waxaa la dhihi karaa wuxuu horumar ku sameeyey ciyaaryahanadii kooxda hore u joogay isagoo markaasna xerada ka saaray ciyaaryahanadii kooxda culays ku hayay sida Cristiano Ronaldo iyo Harry Maguire. Si guud marka la fiirsho United ay top 4 usoo baxday ama ay ku guuleysatay koobka Carabao Cup-ka ma ahan wax mudan inaan u dabaaldegno haddii aan nahay taageerasha Manchester United balse marka la fiirsho kooxda meesha ay joogtay iyo sida rajadu ay ahayd macallin Erik ten Hag shaqada uu qabtay runtii waxaa la dhihi karaa waxay tahay mid ka badan wixii la filayay ama wixii ay taageerasha Manchester United sanadkan filanayeen wax ka badan ayuu soo bandhigay ayaa la dhihi karaa. Season-ku ma ahayn mid 100% perfect ah. Waxaan ognahay dhibaatadii Anfield naga soo gaartay 7 Everton. Waxaan ognahay kulankii Newcastle sidaas la mid ah kulamadii Brentford iyo Brighton horyaalka bilowgiisa balse kooxdu marba waxay muujisay inay awood u leedahay inay ka soo laabato kulamadii ay dhibaatadu soo gaartay. sidaas la mid ah waxyaalaha macallin Erik ten Hag uu ku amaanan yahay ama uu qabtay waxaa ka mid ah in uu muujiyey inuu yahay nin awood u leh inuu filosofigiisa iyo uu ka tago qaabka u dhiiro ama shaxdiisa haddii aysan kooxda anfacaynin. Waxaan ognahay in ten Hag uu kulamadii hore ee horyaalka isku dayay inuu koox kubadda gadaal laga soo dhisayo oo ku dheelo balse maadaama uusan haysan ciyaaryahanadii samayn lahay sida De Gea oo kale iyo Harry Maguire ama ciyaaryahanada difaaca loo dheelayo oo kale aysan kubaddaas noocaasa aysan awood u lahayn inay dheelaan. Waxaan aragnay inuu isbeddel ku sameeyey isla markaasna oo seasonka si usii socdaba uu marba wax bedelayay hadba isagoo fiirinaya ciyaarada uu haysto iyo waxa ugu fiican uu ka heli karo. si daacad haddii loo hadlo macallin Erik ten Hag ma helin ciyaaryahanada uu u baahnaay. Waxaan ognahay inuu Frank de Jong iyo ciyaaryahanada ay ka mid yihiin oo raadinayay suuqa kala iibsiga si fiican loogama taageerin suuqa January-na lacag lama siin ayadoon ognahay in Cristiano Ronaldo ahaa mid ka mid ah ciyaaryahanada kooxda ku tiirsaneyd xagga gool dhalinta uu tegey isla markaasna ciyaaryahanka loo soo gaday ama uu heli karo oo noqday Weghorst waan ognahay waxa uu qabtay iyo sida awoodiisu tahay balse saasay tahay waxaa dhihi karaa wax mucjiso ayay ahayd in ten Hag oo intaas oo wax qabada uu qabto isagoo ciyaarada haystay quality-gooda iyo waxa ay yihiin aan ognahay. sidaas la mid ah waxaa sidoo kale mucjiso ah in kooxdu ay kulamo saas u badan dheeshay ayadoo ognahay inay heer fiican ka gaartay koobka Europa League aan ka gaarnay sidaas la mid ah FA Cup-ka hadda final joogno Carabao Cup-ka aan ku guuleysanay Premier League saddexaad aan kasoo galnay kulamo aad u badan ay kooxdu dheeshay sidaas la mid ah waxaa la dhihi karaa ten Hag shaqo mucjiso ayuu qabtay sida uu kooxiisa u isticmaalay iyo dhaawacyada waaweynaa inuu soo gaaray xilliyo muhiima sida u manage gareeyay aad ayuu u amaanan yahay ayaa la dhihi karaa ayadana. kubadda cagtu way isbedel badan tahay mar walbana sida wax loo saadaalinayo uma dhacaan laakiin ten Hag haddii uu helo taageerada u baahan yahay suuqa kala iibsiga isla markaasna loo soo gado ciyaaryahanada uu u baahan yahay wuxuu u muuqdaa inuu leeyahay awood uu ku noqdo macallinkii ku habboonaa kuna soo celin lahaa United booska lagu yaqaanay. ila wadaag fikirkaaga maxay kula tahay adiga maxaase ku qiimeyn lahayd waxqabadka ten Hag seasonkiisa ugu horreeyay ee waayihiisa Manchester United.